الله كريم. horta salaanta islaamka isku salaam Soomaaliya assalaamu calaykum. hadda qolooyin caafimaadkan la kulmaayay waswaas ay soo raacay iyo qanaas waxa ayaan daraa marka in la maqlayo malaynayaa in aan nahay dad islaam ah misana aan isku damqanaynin hadda kiisaskan noola soo bandhigay qaybta wacyigelinta igu yeereen runtii ma jeclaysan wax lagu durayo dadkayga ama Soomaali wax lagu yeelayo marna ma qaadanayo oo shilmaadna aniga dadkayga ma siisan weligeyna ma siisan qaybta iiga aadan wacyigelinta haddii aan qof rabo inaan ku shito ama qof inaan wax ka sheego toos anaa u abbaarayo haddii aan wax waaninayo ama aan dadkayga wax u sheegayna anaa toos u aadayo way jirtaa wacyigelin kuwa caafimaadka ama dhar ha ahaato ama daawo ha ahaato ama noocay doontaad waa la sameeyo oo wacyigelin oo xayeysiina oo wax la igu siiyo aad waxa ugu xumaada horta Soomaaliya dad muslim aan nahay oo waa sheeganaa muslimnimada laakiin maanta waxaan qirayaa dad badan oo muslimiin sheegto oo Soomaaliya oo aan lahayn iimaan mug ah because xaasidnimadu umadayda xaasidnimada iyo uqtiga iyo nacaybka iyo iimaanka qalbi qalbi ma wada gali karaan afar case ayaa la haayaa oo afarta case cudurka coronaska ay Soomaali faafinayso gabar yar oo dhalinyaro ah naaga waaweyn ku rideen gabadha way ogaayeen inay cudurka qabaan gabadha kasbay ugu rideen gabar kale oo iyadana Yurub joogta same gabdha kala cazumeen way ogaayeen inay qabaan cudurka kas ayay ugu rideen nin weyn oo magaaladeena joogo oo hadda ay ka sheekeynaysa jaamacadda in la karantiilo wax yaraan hadalkaasna waa hadal Soomaalinimo idinku sheegay waa dhacaysa Soomaalida in laga faano hadalkaas meel ku qora maanta waxay damacsan yihiin reer galbeedka in la sooco because anaga waxaan ogaan jiray aniga hadaan nahay Soomaali weel in xalana waa ka hadla weelan wax ku wada cunaa waa istaataabana waa isku soo dhawaana waa isla ciyaarna yes waa cudurku ku dhici karaa dib uma arka aniga laakiin waxaan dib aniga u arkaa qof muslina oo islaamnimo sheeganayo at the same time qof kale walaalkiis ah kas cudurku ugu daaranayo afar case bay haayeen reer galbeedka laba Yurub ay ka dhacday labana Minneapolis ay ka dhacday hadda jaamacadda ka hadlaysa oo kulan aan la soo yeeshay marka ayaan darar weyn wallahi waswaas qanaas hatta waxaan rabay inaan dukaamadan wax ka soo gato koofeega hatta from now on koofeena macba biyo caba Soomaali uma dhawaanaysid because afar case saddex dumar samaysay way haayaan labadii gabdhood way cadeen gabadhi kala koomada hadda ka soo baxday waxay sheegtay inay naaga waaweyn oo caruur leh ee gabar yar oo maaragtay oo maskiina oo school jaamacadda dhiganayso oo ehliyiin ayaa ku daarteen gabadha Yurub joogtana seema lagu sameeyay marka waa ayaan dara annaga haysato qofka muslimka isku sheegayo oo iimaankiisa intaas la barqos hadda aniga cudurka igu dhacay maaha inaan dadkayga iyo ehelkayga iyo walaalahey iyo dadka muslimiinta aan galaabto waxaan ilaaha keeno subhanahu wa ta'ala inaan markiiba sheego oo aan u sheegay dadkayga ama hal la inaco ama hal la ijeclaado maaha qof muslina oo birta aniga la i weydiinaa hadeen tii alla ii timaado oo aakhirin la i weydiinaa inaan galaafto culumadana waa weydiin doontiin waana weydiin kartiin qofka qof muslina kas ugu riday oo walaalkiis inta u yeera oo inta taabtay ama cunto u soo riday hadda gabadha yarta fiiri ilaahay amarkiisa awooday leedahay waxaa tiri dhagaha ii yimaadeen fiiri qandhada tan wuxuu maskaxdeeda qayba fadhiisatay gabadhaas haday dhiman lahayd ka waran 27 jir waa ta kalena waa 35 jir ilaaha ka badbaadiyay marka waxa ayaan daraa way idinku soo socotaa qolooyinkan caafimaadka xayeysiinta sameeyo adinka idinku soo socdaan waa idin sheegay
كيسات كان أنك دحدينا أيو نوعها أول إن استطابني إن وحشو شغنا من عيسين ويوجهين قال هذا ويكن على سويدن هدارتين جوجل كلا Soomaalida maanta ay haysataa Sweden joogto ku Europe joogto ku Minnesota joogtana hadda ku daba taagan yihiin marka ayaan dara haysato way gooni idin kulligiin waxaan idin sheegayaa qof inaad aamin ma caafimaad qabtaa ha gurigiina joog ma caafimaad qabtaa maanta gurigaada joog adeerka ha ahaado abtiga ha ahaado saaxiibka ha ahaado qof inaad aamin oo wallahi oo billahi oo tallaa weligay shilin ma siisanaa ummadayda oo cadaabta Allah ay geey laakiin maanta kiisaska aan hayno saddex dumar ayaa faafinay in weyn afartaba way ogaayeen waana ayaan darana haysato marka intaas ay iga aadan inaan idin sheego gurigaaga joog qofnana ha aaminin intaas ay iga soo gudoon halkaas waa hadal nin weyn qof ha aaminin ilaahu muhadda ku dhaho jannada ka imaado oo Soomaaliya gabadha waa 27 jir jaamacad dhigato oo maskiina intay cunto u kariyeen bay siiyeen gabadha hadda koomada ka soo baxday markaas waxay sheegtay inay naagaas cunto siiyeen ay qufqufacayeen waa laga fiican marka ayaan dara annaga haysato waa islaamno ma aha qof islaam qofka ku shidoobo qof ku dilaayo ku ilmaha kufsanaayo islaamada sheegta Soomaalida 99.9 islaam ma aha iimaanna ma leh akhlaaqna ma leh duntoodana waa xunta because qof muslim qofka ku shidoobo bal haday uu dhinto xaquu tagay aakhiro qofkan kalena uu dhinto because waa uu talgashay inaad dishid qofka muslimka waxa ilaahay adiga ku keenay ma aha inaad qof muslim kale ku siridid marka waxaan leenahay ummadayada inaad is ilaalisid inaad qofna aaminin aniga intaas ay iga aadan maanta markaan la kulmo laba ay qabatay awal wal waswaasul qanaas ahay xalay cunto igu dambeysay wala aniga dhanaa si kala noqday markay ka hadlayaan wayna ogyihiin inaan isdhex galno awal maqaayadaheena ku mashquulsanaayeen awal waxay ku mashquulsanaayeen businesskeena kulli businessedeena waa furiin hadda ayaga ka hadlay kulli businessedeena dhan waa furiin kuwa gaalada iyo kuwa kala carabta kulli waa xiran annagana wili waa sii wadnaa annagana daba taagan intaas waa iga walaaltinimo iyo sheegid laakiin dadka shakhsiyaadka waxaan leeyahay hadda naftaada jecesha qofna ha aaminin gurigaaga joog qofkii ku rabo 20 tilaabo oo Soomaaliya ka dheerow halkaas wallahi waa runtii waa billahi waa runtii waa tallaah kiisaska ay hayaan annaga kas isugu daaran iyo wax ma aha qofka aqoon darro uma geeyay kas ayaa loogu daartay marka nin kale asagana way hayaan oo qof Soomaaliya oo inta dadka u tago ku daaranaay marka waxaan idin leeyahay hadda caafimaad qabtid alxamdulillah alladii an'ama alayna gurigaaga joog intay maal wax u dhacayaan qofka iyo ku imaanin qofna salaamin qofna ha u canin qofna cuntadiisa ha cunin intaas waa iga walaaltinimo qof cunto ku koofeyga sigaar haduu ka go'o wiliga ha cabin qof iga sigaar badan ma jirto Soomaaliya qof iga koofey badan wallahi 48 saac u dambeysay la baahays marka waxaan intaas waxa iga aadan tahay walaaltinimo waa ii yeerteen ina xayisiin sameeyaan rabeen waxa idin sameeynaa ma lahan dhahay because aniga ummadeeda shilin ma siinayo intaas waa iga walaaltinimo intaas waa iga waano waxaana leeyahay artistayaasha Soomaaliyeed dhammaan ciyaartooyda qaar ahaan kuwa basketballka dheelaan inay dadkan u baahan yihiin waxay gelin culimada kuwa isku sheegaan waxaan leeyahay maanta Soomaaliyeed idin baahan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma hasantiin